Jeg heter Benjamin Jakobsen og kommer fra Arbeiderpartiet og er fjerde kandidat til Stortinget dette valget. 3 grunner. Grunn nummer 1 er jo at vi ønsker at alle skal ha en trygg jobb å gå til. Med Arbeiderpartiet i regjering så har vi fått 150 000 flere i jobb, og nå går vi til valg på å få 100. Magacaygu waa Benjamin Jakobsen, waxaan ka tirsanahay xisbiga shaqaalaha ama AB, waxaana ahay musharax ka taagan deegaanada galbeedka Norway. Xisbigeenna waxa uu xoogga saarayaa arrimaha horumarinta shaqada iyo shaqaalaysiinta iyo dhaqaalaha dalka. Waxaan ilaa iyo hadda shaqo gelinay in ka badan 150,000 oo qofood. Waxaan qorsheynaynaa in intaa iyo in aad uga badan aan sii shaqo gelino. Waxaan xoogga saaraynaa sidii ay waxbarashadu u noqon lahayd mid tayo sare leh. Si taa la midana waxaan xoojinaynaa arrimaha xanaanooyinka iyo weliba arrimaha caafimaadka. Xisbigeenna waxa uu sidoo kale ka shaqayn doonaa sidii nabad waarta looga heli lahaa dunida, si Norway nabad waarta ay u sii ahaato. Og skal fortsette å stille opp for mennesker rundt om i verden, samtidig som vi gjør Norge tryggere for oss som bor her. Vi tror at det henger sammen med hvordan vi jobber ute i verden for å gjøre den trygg. Waxaan xoojinaynaa taageerada aynu siinayno dadka reer Falastiin ee ay ku doonayaan sidii dawlad xur oo madax bannaan ay u ahaan lahaayeen. Waxaan xoojinaynaa taageerada aynu siinayno dadka reer Ukraine sidii ay dalkooda isaga xuray lahaayeen duulaanka lagu soo qaaday, si dunida ay u noqoto mid nabdoon. Godt valg.